marka waxaan jeclahay inaan noqdo ninka khaliya ee hubka u saara qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdifataax waxa uu ka mid yahay da'yarta qarankooga u maalay fikirkooga, waana wiil la kacaamaya farsamo iyo hindiso isbaray, waana ubaxa u soo baxaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa uu gacantiisa ku sameeyay hubka noocyadooda kala duwan sida AK47ka, PKMka, suuga iyo diyaarad dagaal. waxa uuna ka sameeyay looxa bilfoonka iyo karaaton uu mariyay ranjiyo kala duwan. markaad eegto hubkan symbolka ee uu sameeyay Cabdifataax waxa la moodaa hub caadiya. hal abuurnimada Cabdifataaxna waa mid bilowa una baahan taageero, dhiirigelin iyo garab istaag. hindisahan da'da yar leh waxa uu ku hamiyaa inuu sameeyo hub caadiya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qabtiro sameynta hubka si uu qaranka u gaarsiiyo isku filnaansho dhinaca hubka ah. waqti badan, dadaal badan oo joogta iyo fikir saliim kadib, Cabdifataax waxa uu hirgalay inuu rumeeyo rajo rabitaankeedu ahaa qarankaaga gaadhsi tabacaaga meel maray. waxaanu ku booqanay hoyga uu ka degan yahay magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka si aan wax ugu ogaano hal abuurnimada curdinka qaabka uu sameeyay. Fataax bal waxaan weydiin doonaa inuu sharaxaad guud naga siiyo hubabka noocyadiisa kala duwan oo gacantiisa ku sameeyay, waxyaalaha ka kooban yihiin, waxyaalaha uu ka sameeyay. waa sax walaal, waxaan ka sameeyay qalabkan qayb waa bilfoon iyo kartoon isku jira. marka qorigan waxa la yiraahdaa AK47 baa qorigan la yiraahdaa. qorigan waa qori AK una ka kooban yahayna qasnadii, toortoorihii iyo intii dambe looxii iyo soonkii. qorigan waad aragtaa marka qoriga la cabaynayo toortooriisi waa kan imka saa u cabaysan yahay. halkan waa ammaankiisii iyo qasnadiisii oo qoriga qasnadiisii xaga noosa. qaybtaasna waa qaybtii doonta xabadu marisay iyo intaasoo ka samaysan loox. qaybtaasoo ka samaysan loox kan imka aad aragtaana waa qoriga loo yaqaano PKMka oo qori darandoori u dhaca. wuxuu leeyahay qasnad weyn, qasnada weyn hoosta ku leeyahay waa qasnada xabada qaada. halkan aad aragtaan dalalkan waa halkii laga saariyay xabada silsilada laga gelinay qoriga. halkan waa dhagtii la qabanay qoriga iyo toortoorihiisii oo halkan laga cabaynaya. imika waad aragtaan waa cabaysmaya qorigii. inta halkan horna waa laguhiisii ku istaagay dhulka lagu dhigay. waa qori caadi, dadku waxa uu qaadanayna qori caadi yahay. kan waxa la suug baa la suug ama 7 baa la waxa degta laga ridaa. waxaan loogu talagalay tiknikada loo adeegsadaa oo waa qoriyaha tiknikada lagu baabiyo. wana hub si fudud wax u baabiya. hubkani wuxuu ka samaysan yahay kani wuxuu ka samaysan yahay kartoon ka samaysan yahay. intan waa kartoon soo gidigiisu kartoon ka samaysan yahay. markii hore hamigiigu waxa inaan qori caadi sameeyo anigoo ka cabsaday inay dawladdu tiraahdo ma askari baa tahay, waayo ninka askarigu baa loogu talagalay inuu hubka. laakiin wiil yar oo ardaya oo foonfoora inuu hub sameeyo waa mamnuuc. diyaaradan waxa ku talagalay remote baan ugu talagalay. waxaan doonayaa inay qaado smoke bomb ama miinaan qiiqa ka samaysan sunta gaaska sunta ka samaysan. insha Allah waxaan ku rajaynayaa diyaaradan kiciyo oo si fiican u shaqeyso. bal Cabdifataax waxaan weydiin doonaa maxaa ku dhaliyay inuu isagu sameeyo hubkan maadaama uu yahay wiil dhalinyaro. horta waad aragtay oo ninka askariga marka la qoray maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la weydiinayaa qori mas'eeta. marka waxay igu dhaliyay saan ciidanka uga maarmaan hubkan ay soo qaadanayaan. Cabdifataax adigu goormaad ogaatay inaad wax sameyn karto, ikhtiraaqi karto? markan waxay igu dhashay markaan ahaa standard 8 markaan dhiganay dugsigii hoose Gabiley markaan dhiganay fikirka u dhashay. intaasoo dhan waxaan ka baqinay dawladdu qabsato oo la yiraahdo hubkan maxaa sameeyay. maadaama markaan foonfoor gaaray waxaan ku rajaynayaa in hubka dawladda uu sameeyo maadaama iskuulkii gabagabeeyay. waxaad ka mid tahay dadka hal abuuray ee ikhtiraaqay ee maanta qaranka Soomaaliland loo karo waxba ku soo kordhiyano. adiga say kula muuqataa hubkan aad samaysay? dawladda ka badan tahay ama ka soo socdaan xagga hubka ka soo saar badan tahay ay ka baawar badan tahay. waayo waa laf dhabarta dawladda baa hubku oo waa tan qarankii lagu ilaalinayo. muwaadin kastaaba qarankiisa waxba ku soo kordhiyaa. muddo intee leeg bay kugu qaadatay inaad qarankaaga ku soo kordhiso ikhtiraaq noocan oo kala ee waliba symbolka aan ahayn originalkii hubka ahaa? horta fikirku aad iyo aad buu badnaa. 4 sano ku soo jiray secondary-ga waan ka fikirayay loo sameeyo. laakiin sameyntu waxay igu qaadatay muddo 3 toddobaad ay igu qaadatay sameyntoodu. ma jirtaa cid adiga qalabkan ka caawisay ama ba kugu dhiirigelisay waxaad maanta fududeysaa la odhan karaa qaranka ka damaanad qaadi karto inay ka maarmaan hubka? taliyaasha way yimaadeen wayna ku farxeen. wax lagu farxay noqotay. waxaan igu dhaadeen waxa gaarsiinaa madaxda sare waayo hubkan waa hub khatar oo sameyn kartaa awoodna wad leedahay qoriyaha sameyso. hadda intee leeg baad ka leedahay inaad sii wado sameynta hubka noocyadiisa kala duwan? marka waxaan jeclahay inaan noqdo ninka khaliya ee hubka u saara qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah duulaha. oo hubku intaan sameyn karaa intan maaha. bombadii smoke bomb ka leeyahay bombada qiiqa ka samaysan taasoo ka sameyn karo sun baan ka sameynaya. suntaasoo la isticmaali karo habeenkii ciidamada adeegsan karaan. kala sameynaya sida bambooyinkii caadigii ee la isticmaalayay tii tiknikada loo dhigay iyo noocyada kala duwan ama tii afantriga loo isticmaalay ciidanka. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi imika waxay aad u dardargelisay inay dhiirigeliso dadka farsamada gacanta ugu heer sareeya ee meel mariya ee qaranka wax ku soo kordhiya. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maxaad ku baaqaysaa? waxaan ugu baaqayaa inay ogolaadaan inaan sameeyo inaan hubka sameeyo noocyadiisa kala duwan. intan ma aha tiro ka badan
waayo waxa jira wax khatar imika gaaska kale waa khatar oo waxay doonaysaa meel lagu tijaabiyo u baahan yahay meel bannaan waa Yalna Xaji telefishinka qaranka Somaliland gabilay.